galab wanaagsan dhegaystayaal idil ahaantiinba waa Jimco 24 bisha Oktoobar. Toddobaadkan London waxa lagu qabtay shir caalami oo looga hadlayay shidaalka iyo gaaska Soomaaliya. Haddaba su'aasha barnaamijka dooda waxay ila tahay galabta waxay noqon doontaa ma tahay xilligii saxda ahaa ee Soomaaliya ay soo saari lahayd kheyraadkeeda dabiiciga marka la eego xaaladda ammaanka ee Soomaaliya. waan aaminsanahay in la soo saari karo waana xilligii ugu habboonayd baan qabaanu ee la soo saari lahaa shidaal waayo nabadgelyo way jirtaa lagu soo saaraa dhaqaalaha waddankana wax weyn buu ka taraya moodaa haddii hadda shidaal la soo saaro dee wuxuu ku noqonayaa inuu dhib soo kordhin karaa dhici kadho oo dadkii dib haddana isugu noqdaan in xuduuddan halka annaga lahayn iyo aagga annaga noo xirnayd waxaanu eegi doonaa fursadaha iyo caqabadaha taagan dadka qaybgala shirkaasi iyo weliba mas'uuliyiinta dowladda Soomaaliya iyo maamulada Soomaaliya iyo weliba dhagaystayaasha ayaan barnaamijka ku casuumi doonaa. Toddobaadkan shir caalami ah oo looga hadlayay shidaalka iyo gaaska Soomaaliya ayaa magaalada tan London lagu qabtay. Shirkaasi waxa uu ahaa kii labaad ee lagu qabto magaalada tan London sanadkan ka soo gudubnay ayaa qaybtii hore la sameeyay. waxaana shirkaasi looga hadlayay suurtagalnimada shidaal iyo gaas laga helo Soomaaliya. haddaba goorna waxaan u gudagali doonaa martida barnaamijka oo nagala qayb galaysa iyo dhagaystayaashaba laakiin marka hore waxaan jeclahay haddii ay doonayaan dhagaystayaasha barnaamijka inay nagala qayb galaan waxa ay noogu soo diri karaan fariin qoraal kooban lambarka 4477862 eber 9 ama waxaad codkaaga noogu duubi kartaa lambarka eber 442 eber 1 iyo dhinaca Facebookna fikirkiina waad ku soo qori kartaan. barnaamijka waxa nagala qayb galaya oo Martin noogu ah Maxamed Cali Nuur Xaaji oo ah sarkaal sare oo ka tirsan wasaaradda macdanta iyo batroolka oo shirka London ee toddobaadkan ka qayb galay. waxa kaloo isna dhinaca maamul goboleedka Puntland isna nagala qayb galaya Faisal Xawar oo ah la taliyaha maamulka Puntland ee xagga horumarinta dhaqaalaha. xasan cali xuseen oo isna ah la taliya sare oo dhinaca shidaalka khabiir ku ah shirkadda la yiraahdo Saudi Aramco oo wadanka Sacuudiga isna khadka uga jira iyo Professor Yahye Sheikh Amir oo isna dhaqaalayahan oo fadhiya stuudiyaha iyaga magaalada Nairobi. ku soo dhawaada marka hore barnaamijka waxaan jeclahay inaan ku bilaabo Maxamed oo stuudiyaha hadda ila fadhiya. Maxamed Cali Nuur waxa aad shir ku yeelateen London oo shirkada caalami ah ay ka soo qayb galeen. marka hore waxaan rabay marka si kooban bal horta inaad noogu sharaxdo muxuu shirku ku saabsanaa. bismillaahir rahmaanir rahiim intaana su'aashaada ka jawaabin horta ummadda Soomaaliyeed waxaan ugu hambaleynayaa dhalashada sanadka islaamka waxaan leeyahay kulligiin muxuu ahaa sheegay sanad wanaagsan. su-aashaan haddaan u soo noqdo shirkan ka dhacay magaalada London wuxuu ahaa shir ku kooban looga hadlayay arrimaha Soomaaliya gaar ahaan shidaalka iyo gaaska petroleum iyo oilka. wuxuuna ujeedadiisu ahayd in Soomaaliya maanta ay diyaar u tahay in wadankii lagu soo noqdo shirkadii horena ku soo laabtaan Soomaaliyana ay diyaar u tahay in maanta shidaalkeedii la baaro. dad badan oo Soomaaliya horta way ka warhayaan hawlahan shidaalka iyo shirkadahan Soomaaliya hadda kuwii hore iyo kuwa haddaba ku hawlan laakiin shirkadan Soma Oil and Gas ee shirkan waday oo adinkuna aad qayb ka ahaydeen marka hore bal haddaad noo sheegto waa maxay doorkoodu. run ahaantii shirkadan Soma Oil keligeed may wadan shirkadaha kaloo la waday waxaa ka mid ahaa shirkaddii Shell baa ka mid ahayd. shirkanna waxaa hoggaankiisa lahaa wasaaradda macdanta iyo batroolka iyada ayaana hogaaminaysay. haddaan gaar ahaan u soo laabto Soma Oil waxa weeye waa shirkad samaysay survey ka samaysay badda Soomaaliyeed oona ahayd shirkaddii ugu horreysay oo ilaa dalka markuu ka dhacay burburka waddanka Soomaaliyeed samaysay waxa la yidhahdo seismic survey waddanka ka samaysay ayay ahayd ma ahan shirkad batrool baarta. marka haddaan si guda galno heshiis baad la gasheen marka micnuhu muxuu yahay saami intee leeg bay leedahay shirkaddan waxaa tiri waa shirkaddii ugu horreysay ee baaritaankaas noocaasa samaysa laakiin ma dowladdaa la heshiisay ma xaggay ka timid. shirkaddan heshiiskeeda wuxuu dhacay sanadkii hore 2013 heshiiska lagula heshiiyeyna wuxuu ahaa wax la yidhaahdo seismic option agreement waxa la yiraahdo oo ah in ay sameeyaan baaritaan
oo ah waxa la yidhaahdo seismic survey ay ka sameeyaan badda soomaaliyeed markii ay dhammaystiraanna daytada ka timaadana inay ku soo wareejiyaan dowladda soomaaliyeed. waan gartay marka erey bixin ma loo heli karaa ereygan seismic aad tirid ku soo celcelisa dhowr jeer oo af soomaali? seismic macnihi waxa weeye waa baaritaan marka la baarayo macdanta iyo batroolka iyo gaaska marka la baarayo baaritaanka ayaa la seismic macnaheedu waxa weeye waa electric shocks dhulka loo dirayo ama badda loo dirayo markaa ka bacdina lagu ogaanayo structureka dhulka uu leeyahay ama badda ay leedahay markaana la dareemi karo meelaha uu shidaalka kaga jiro laakiin aan ahayn wax accurate aan ahayn laakiin la heli karo markii datadaas lasoo ururiyo lagu sameeyo processing lagu sameeyo la process gareeyo markaana interpretation lagu sameeyo oo intii la eego la qiyaasi karo meelaha markaa la isleeyahay ha laga duleeliyo ceelkii ha laga qodo waana laga heli karaa waana laga weyn karaa markaana. waan gartay marka waxaan rabay inaan ku weydiiye marka baaritaan baa la sameeyey sida aan filayo oo muddo dhowr bilood ah oo shirkad norwegian lala heshiiyey oo maraakiib xeebaha soomaaliya xaggee wax laga baaray marka dhowrkaas bilood? dhowrka bilood waxaa laga baaray ilaa xuduudda laga bilaabo koonfurta Kismaayo ilaa la gaaro ilaa xuduudka Puntland meel ka mid ah intaa ayaa la baaray shirkadda intaa ayay baartay oo badda gudaheeda ah. ilaa hadda marka wax lagu kala caday oo lagu ogaaday macnaa inuu shidaal jiro maxaa tallaabada xigta ay tahay marka? tallaabada xigta waxaa weeye processkan waxaa loo maraa markii baaritaanka uu dhammaado daytadan lasoo ururiya waan ku celinaya ayaa waxaa lagu sameeyaa waxa la yidhahda processing markii la process gareeyo ayaa markaa kabacdi interpretation ayaa jiro la akhriyo oo markaa la akhriyo kadib intaas ay marto ayaa markaa shirkadihii doonaya ama xiiseynaya ay meelihii ay doonaan markaa ceelashii laga qodayo. waad mahadsan tahay waan kugu soo noqonayaa maxamuud cali nuur. Faysal Xawar waxaad la taliya dhinaca horumarinta dhaqaalaha u tahay maamul goboleedka Puntland marka idinku xaggee wax idiin marayaan shidaal baarista Soomaaliya marka la yidhaahdo? marka hore waxaan salaamayaa dhammaan walaalahayda ku jira doodan ummadda Soomaaliyeed meela joogtada ilaahay Soomaaliya waxaan rajeynayaa nabad iyo isfahan keena in aynu ka faa'iidaysano khayraadka dalkeena ama ha noqdaan khayraadka carbonka ama macdanta ama marayniskii badda wuxuu ku jira. haddii aan taa ka gudbo geedi socodka shidaal baarista Soomaaliya ma aha mid cusub waxaweye waa mid inbadan socday. dowladihii horetay Soomaaliya xilka saartay waxa la isku dayay jira ceelashii ugu horeysay 56kii baa la qoday ilaa 29 ceel baa la qoday Soomaaliya intii dowladii ilaa Maxamed Sheekh Ibraahim Jiddi ka horeeyay. xilliyada Soomaaliya waa lagu tuunsanaa shidaal ceelasha qaarkoodna oil show fara badan ayaa jiray sida Midaal Kalis sida ceelasha xeebaha sida ceelasha dhagax shabeel iyo halkaa bergeriga u dhow. haddii laga soo gudbo xilliga burburka la gaaray Puntland waxay sanadkii hore qoday oo laba ceel oo tesa shabel 1 iyo shabel 2 indication fiican ama tusmeyn fiican ayay sameeyeen. dowladda waxaa malaha qorshe ah in ay seismic lagu celiyo waa taa uu sheegayo walaalkay wasaaradda ka socda. caam ahaan Soomaaliya shidaalku waana lagu tuhmayaa waxyaalo badan oo bedelay oo intusay oo hadda caalamku inoo soo jeediyeyna waxaa ka mid ah helidda baasaroolka laga helay Afrikadayna ka hooseysa ha noqoto ilaa Mozambique. Faysal marka wax soo saar baad isku daydeen Puntland meelaha degan ee Soomaaliya xoogaa ammaanka uu ka jiray bay ka mid ahayd marka maxaa idin hakiyey? walaalkay wax soo saar petroleum ama sida loo raadiyo shidaalku isteedyo badan ayuu maraa. waxyaalaha badanaa lagu ilduufo waxaa kamid a waxaa dadka u malayaan inay tahay wax yar oo sahala. marka hore exploration phase oo ama seismic ha noqoto ama ha noqoto wildcatka ama ceelasha la daaweynayo oo lagu ha noqotee waxa weeyaan waa stagekii hore ee explorationka ama raadinta ayuun baa lagu jiraayo de hadda meel baad gelaysaa 2D seismic baa Soomaaliya fara badan dhaata ay lahayd 3D seismic baa malaha loogu daya sanadkan in la sameeyo si loo helo kasha ama laabka ama meesha ugu habboon ee la daloolin karo oo markaa
productionkii sidii loogu gudbi lahaa development waa ka horeysa production loogu gudbi lahaa marka weli stageka hore ayaa lagu jiraa waana wax u baahan wada shaqayn isfahan duruufaha badan ee soo noqnoqda ee federaalka cabsiga ah awood sharinka ah murankaasi ama xagga ha noqdo waxyaalo faa'iidaya maaha in ummadda soomaaliyeed looga faa'iideeyo maxaan ku rahday resourcekooda wixii ilaahay siiyey dee ilaahay ugu riday dhulkooda waxaan walaalkay wariyo rabana ku sheego arrinka muhiimka ah shakiya miiba waxaa laga hayaa waan gartay xilligii dhagaxa adduunku kagama bixin dhagax la-aan Faysal xilliga shidaalkana lagaga bixin maayo shidaal la-aan bini-aadamku wax kale ayuu helaya xilliga dhagaxana bir baa la helay oo bini-aadamkii birkii dhagaxa uga kaaftoomay xilliga shidaalkana shidaal la-aan looga bixin maayo bini-aadamku infusion nuclear waxyaala kala gaaraya ummadda soomaaliyeed waan gartay marka aan kaa dhex gale Faysal aan kaa dhex gale waxaad tiri in soomaalida in looga faa'iideeya wanaagsan tan soomaalida dhexdeeda haddaanu ka tagno oo waxaa jiray dowladihii hore ee Soomaaliya shirkadaha caalami ah oo Shell iyo Conoco ay ka mid tahay oo heshiisyo la galay oo blogyo badan xirtay intii dagaaladu ay socdeen wadankii amaan darro u iman waayey marka federaalkan aad sheegayso ee dadkan lagu cabsi gelin aad leedahay weli isagii baa xitaa qabiyo ah oo sharciyo aan loo dejin sidii wax loo kala maarayn lahaa in dowlad dhexe iyo mid gobolba marka ma isleedahay xogaa waqtigeedii lama gaarin oo waad ku degdegteen wararkooda lama oran karo waxa weeyaan waxaa innaka ayaa dhulka iskale shirkadaha hore iyadoo ixtiraamkooda iyo heshiisyadii lala galay ixtiraamkooda leeyihiin waa ku jiray tiimkii petroleum loading hadda federaalka wax ka sameeyey xilligii kuwait energy markay sameeyey rag u dhundaroobay baan ahayn xilligii lala xidhiiray oo heshiisyada loo sheegay Soomaaliya way ka guurtay convention in dhulka la iska haysto oo blogyada qaarkood ay ka weyn yihiin Qatar iyo Bahrain iyo Kuwait oo la isku daray ay ka weynaayeen ay shirkadaha hore iska xaninteen xilligaasna dhulkan waxa lagu ogeeyay batroolka Brazil iska welitay blogyo waaweyn oo Kuwait iyo Qatar iyo Bahrain oo la isku daray ka waaweynaa xilliga lala xiriirin way jiray shirkadaha qaar inta fikrayo yiri dhulka idinka iskale blog system iyo blog sharing kana ugu guurteen raali baan ka nahay shirkado yiri way jireen waad mahadsantahay Faysal iigu jir qadka waan gartay waan ka hadli doonaa wax badan shirkadaha iyo heshiisyadii hore loo galay iyo waxa hadda ay noqon doonto marka la yiraahdo xitaa maamulada gobolada ee dastuurkan federaalka iyo waxan degsan waxa laga yeeli doono gobolada aan dhaqaale ahaan isbixin karin iyo qaabka loo maareyn karo doodaasi barnaamijka qaybta dambaan uga doodaynaa laakiin waxaan jeclahay inaan fursad siiyo haddana dadka kale nagala qayb galaya Dr. Xasan Cali Xuseen Sacuudigu jooga shirkadda Saudi Aramco ayaad la taliye u tahay Soomaaliya markaad eegto xagga fursadda haddaad ka eegto Xasan waqtigeedii xilligan ma tahay baad isleedahay marka xagga ammaanka la eego marka hore waxaan salaamayaa saaxiibada igula jira khadka sidoo kale waxaan also salaamayaa dadweynaha dhegeysanaya sidoo kale ragina BBC-da Farxaan iyo Cabdiraxmaan Koronta waxaan aaminsanahay waqtigeedii way tahay oo caalamkii waxa soo wajahay saliid la-aan saliidda ku jirta ay hadda baarida lagu wada aad bay usii maraysaa gabaabsi marka dhul cusub in la baaro ama laga fahmiyo badda iyo dhulkaba waa muhiim hadda arrintan Soomaalida ee khaasatan dhinaca badda laga baarayo waxaa keenay ama dhiirigelin weyn keentay markii laga helay sanadihii la soo dhaafay gas fara badan iyo saliidba xeebaha dalka Mozambique, Tanzania, Kenya iyo dhanka barigana harta weyn ee Lake Victoria loo yaqaan Lake Alberta loo yaqaan ee u dhaxaysa Uganda iyo Congo u dhaxaysa iyadana laga helay saliid ayaa waxaa la ogaaday in xeebta Soomaaliyeed oo ah xeebta ugu dheer Afrika laga soo bilaabo 3,200 kilomitir ku dhow in iyadana ayna ka marnayn gaaskan iyo saliidan oo aad loogu hanweyn yahay in laga helo taas ayaa keentay in shirkadihii saliida ee kusoo tartamaan wadanka Soomaaliya marka dhulku ama bariga ama sida loo yaqaan onshore-ka way adag tahay oo shirkado hore ayaa loo saxiixay 25 sano ka hor marka dhinka badda ee banaan weli ayaa iyadana shirkadan Somo Oil Gas laga codsaday ama heshiis lala galay inay ka baarto seismicada waxay jirta qayb badda kamid ah
oo dhankaa shisha ah oo iyadu shell baloog ahaan loo siiyey. shellna waxaana igu maqaalaa shirka markaan ka qayb galnay in lala xiriiray oo iyadana ay maaragtay ay ogolaatay inay halkaa baaritaan ka bilowdo oo dhanka maaragtay badda ah oo iyada baloogeeda ah. waan gartay. marka su-aashaan ku weydiinaya waxay tahay xasan, si wanaagsan baad u dhigtay. marka xilligeedii ma tahay haddaad eegto kolley dee wadamo fara badan oo shidaalka laga qodayana waad u soo joogtay. soomaaliya xaaladeeda markaad hadda eegto, dadku inta badan waxay yidhahdaan soomaalida waa tan ceel biyo ku heshiin weyde, ceel shidaal miyay ku heshiinayaan. marka jawiga markaad hadda eegto waktigeedii ma yahay? wallahi waxaan aaminsanahay waktigeedii oo dee haddii batrool la helo, dhaqaalo la helo, de marka wax la dhoofiyo, waxaan aaminsanahay dhibaatada iyo colaada inay yaraan karta ayaa dhici karta oo dadka wax saadaaliya dhankaas bay u badinayaan. haddana hadda maaragtay khaasatan haddii badda laga helana kasii fiican oo dee cid gooni bad u sheegan karto dee dagaal ku qaadi karta male oo oran karta ceelkaa badda laga helay anaa iskale. de waxaan aaminsanahay marka haddii dadkeena soomaalida khaasatan siyaasiyiintu ummadda waxaan umalaynayaa inaynan dib weyn ka dhex taagneyn soomaalida maaragtay ka bad ahaan, laakiin siyaasiyiinta iyo qolooyinkan maamulada iyo dawladda iyo hadday de iska arkaan arrimahan shidaalka ah oo de heshiise ka samaystaan oo maaragtay in ay oo ay isku raacaan sida oo ay ula macaamili lahaayeen shirkadahan petroolka baaraya. waxaan aaminsanahay in maaragtay uusan waktigeedii ugu fiican lagu jiro maaragtay. waa mahadsan tahay xasan. khadka igu jir stuudiyaha yaga nairobina waxaa fadhiya professor yaxye sheekh caamir oo dhaqaalayahan ah, runtiina arrintan u dhuun daloola. yaxye, ma kula tahay in xilligeedii la joogo soomaaliya khayraadkeeda dabiiciga in hadda la yidhahdo waa la soo saaraya? maya, ilama aha. waxaa la yidhi shimbiro markay baalasheeda hubsatay duushaa. meeshaan waxaa isku haysta shirkado fara badan oo midba gooni ay u socoto. waxaad og tahay nigeria markii shidaal soo saarada ugu horeysay dagaalkii biafra iyo tashoon baa ku bilowday. angola shidaala laysku haystaa. suudaan labaa ay u kala qaybsantay. wadamo badanoo sidii libiya, ciraaq waa dhinteen, waxay sababsadeen shidaalka. venezuela oo latin america cunaqabateyn siyaasadeeda shidaalkeeda u keenay. iiraan lagamaba iibsan karaa layidhi. marxaladda anaku aan ku jirna maxaad u malaynaya ee heshiisyada dowladda dhexoo keliya ma saxiixin. waxaa saxiixay maamul goboleedyo, gudoomiye gobolaa saxiixa, gudoomiye degmaa heshiis saxiixa, oday dhaqameed heshiis shidaalow saxiixaa jiro, shirkado soomaaliya oon la aqaanin oo iguna heshiis saxiixaa jiro. konfliktigaas fara badan ilaa arrinteenu ay meel ku ururayso. khilaaf ayaad waxaad ku sii kordhinaya khilaaf kale. midda kale, shirkado waxaa jiro faalsa ah oo shidaal soomaaliya ka baaro. dibaddaasay iska soo rejistrayeen, heshiisay ka qaateen gudaha, lacag yaray banki ka soo qaataan, waxay yimaadeen gudaha dhowr fuusto iyo anteenooyin ay taagtaagaan iyo riigig. iyaga laftooda qabaa'ilka inta lacag siiya isku diraan. marka dhowr fuustoo shidaalna waa gubaan, waa dhacday oo bannaanka yaallo oon ahayn kii dhulka ku jiray. kadibna waa khasaarna yidhaahdiin, waxay u laabtaan caymiskii ay marka hore galeen, caymiskay lacag ka doontaan. siyaasiga gudaha joogo ee u saxiixay lacagta siiyana shacabka ku beer la xawsadaa. waxaan idiin saxiixay shidaala noo soo dhow, hadduu soo baxaa birin dambaan la hela, shirkadii waxaa naga carqaladay reer hebel. taasaa dhacda oon ogaan shirkada aan jirin oo hadda dhow isdiiwaangeliymeelahay ka dhaceen ma noo sheegi kartaa professor? eedeyn waa la jeedin karaa, laakiin caddayn baa loo baahan yahay. meesha oday dhaqameed uu ku saxiixay heshiis oo aad sheegayso waa xagee? wal hadda heshiiskii ugu dambeeyey sanadka hore etoobiya lagu saxiixay ee UN qayb ka mida igad ay joogeen yaa saxiixay. wasiir beeledyo puntland yaa joog, somaliland waxaa joogay galmudug. laakiin waa maamulo jiro, ma aha wasiiro beeleed. ma aha yaxye, runta isku sheeg. maamulo goboleedya soomaaliya ka jira oo wasiir beeleed ma aha. aan runta isku sheegna maamul goboleedka gobolada qabiil keliya maa dego mase qabaa'ilaa dego. magacayada marka hore waxaa la baxna ururadii waxaa u bedela qabiilkaa urur naqday, qabiilkaa gobol naqday. runta haddii laga hadlayo, haddii la yidhahdo dowladda dhexe federaalka naftirkeed qabiil baa lagu qaybsado, waa tan 4 iyo dhibicda la qaatee. qabaa'il cocktail ah. waan gartay. halkaada iigu jir marka su-aashaasaan weydiiyey. waxaa ila fadhiya mas-uul sare oo ka tirsan wasaaradda macdanta iyo batroolka soomaaliya, maxamed cali nuur xaaji. waa kan wuxuu leeyahay professor yaxye, qabiil baa wax saxiixaya, oday beeleed baa shirkad ajnabiya shidaal in lasoo saaro u saxiixaya. marka se waxaas ku soconayaan? run ahaantii aniga sida ay ila tahay ama walaalkay hadalka uu yiri jawaab oo asaga ma naqdinayo, laakiin run ahaantii xaqiiqda meesha jirtaa waxay tahay Soomaaliya inay qaadatay nidaam muxuu ahaa isaga federaal ah.
federalismkan waxa weeye cid walbo maanta Soomaaliya joogtaa way ku khasban tahay cilada meesha ay ka jirto waxay tahay kaliya oo u baahan isfahamka waxa weeye waa yaa cidda u leh awoodda amaba u leh muxuu ahaa ishag legitimacy u leh in ay heshiis caalami ay gasho wadamada adduunka oo shidaalada soo saarana wadan walba wuxuu leeyahay sharci gooni ayuu leeyahay Soomaaliya kaligeed federaal ma ahan wadamo badan oo federaal baa jira Mareykanka ka mid ah Mareykanka sharci buu leeyahay sharciisa waxa ka mid ah wax alla wixii muxuu ahaa haday noqoto shidaalka badda oo kale ilaa 3 mayl oo kale waxa 3 mayl mas'uuliyadeeda leh heshiiskeeda gala federal state-ka ayaa gala oo maamul sida muxuu ahaa federal state-ka haddii wixii ka baxsan 3 mayl ilaa 6 maylna waa joint Mareykanku waa dawlad dhisan oo nidaam u degsan idinku ma idin degsan yahay qaabkaas aad wax u maamul lahaydeen sax waxa weeye marka annaga halka dhibka uu ka jiro waxa weeye qaabkii wax loo maamuli lahaa ayaa wuxuu la burburay muxuu ahaa dagaalkii sokeeye Soomaaliya ka dhacay haddana wasaaradda meelaha ay muhiimadda saartay waxooga ay saartay waxa weeye intaba shidaalka aan la gaarin in horta saldhigga ay u samayso shuruucdii iyo looyadii lagu wada shaqayn lahaa oo ay ka mid yihiin shidaalka marka la soo saaro sidee wax loo qaybsanaya oo ah revenue sharingka oo aan already diyaarinay oo aan muxuu ahaa la qaybsanay maamulada jira qaarkood oo aanu ka wada hadalnay marka waxa weeye shakiga ayaa aad u badan iyo waxyaabaha dadka ay rumaysan laakiin reality runta marka loo yimaado waxa weeye dawladda federaalka dhexe iyo maamulada intaba waxa weeye sida ugu haboon waxay tahay in shuruuc Soomaaliya u gaar ay ka samaysato kana wada shaqeyso waan gartay dhageystayaasha aan fursad siino maxamed aad baad u mahadsan tahay cabdi xasan oo khadka uga jira magaalada Nairobi Kenya su'aal ama fikir waxaad qabto cabdi xasan waa mahadsan tahay ka qaybgalayaasha kale iyo dhageystayaasha kulli waa salaamaya aniga fikir ahaan waxaan qabaa Soomaaliya maanta xaadirka waqtiga la joogo diyaar uma ahan inay arrintan ku mashquulsho shidaalka sababaha jira awgeed midda koobaad annagoodan awood u lahayn maanta aan gorgortan ku galno ama heshiis caalami ah ku galno sababtoo ah dadka aan la gorgortamayno lana tayo ma nihin lana quality ma nihin mana gaari karno inaan xataa looyarada ay wataan aan samaysano taas waa mid tan labaad aqoon aan ku maamulno haddii shidaalka lasoo saaro nooma diyaarsanaa oo waddan burburay oo waxaba dib laga soo bilaabayo in hamigaa weyn uu dhagalaa horta xoogaa waa arrin aada u adag midda labaad heshiisyada mudanaha kula jooga ee wasaaradda ka socdaana waa sheegay professor yaxyana waa ku raacsanahay maba heshiis ma nihin Soomaaliya dagaalkii ay gashay kama soo bixin inaan wax wada qaybsanno waa nagu adag tahay haddan waxaan isku tuhunnaa canshuurta yar ee ka soo baxda aeroboortka Muqdisho iyo dekada Muqdisho iyo dekada Boosaaso ama maamul goboleed kale oo jira sida Kismaayo oo kale ayaan isku haysanaa hebel waxaa soo qaatay maxaad ka malaynaysaa shidaal iyo awoodiisa iyo dhaqaalihiisa markuu yimaado dhibka ay noo keeni doonto waa midda labaad midda afraad waxa weeye xeer aan ku difaacno horta dhaqaalaha noocaasa oo maxamed cali mudane oo hadda ka dhawaajinayo ha la sameeyo intaanba horta shirar London iyo caalamigeeda iyo aan lagu degdegin midda kale tusaale ahaan waxaan aan ka hadlayo dhan waxaa noogu filan South Sudan dhibaatada ka dhacday iyagoo iskuba midda aflixaad oo aan sheegayo waxay tahay dhaqaale aan shidaal maanta inaan development ka raadino waxaa nooga sahlan inaan amnigana raadino waxyaalaha kale aan haysano ama badda ama beeraha inaan ku mashquulno sababtoo ah Nigeria oo ka mid ah adduunyada wadamada ugu soo wax soo saarka badan dadkeedu fakri iyo gaajo waxaan kama qaadin taasna waxaa keentay aqoon darrada maamul xumada musuqa waa maasantahay cabdi xasan waa maasantahay Dr. Xasan Cali Xuseen ayaan siinayaa Dr. Xasan Soomaali waxa leeyahay adiguna haday waxaad qabtay in waqtigeedii la joogo laakiin sida hadda dhageystaha uu sheegayo cabdi xasan waqtigeed wuxuu leeyahay Soomaali iyadii baaba la heshiisiinba haddaba la isku haystaa dekadaha waddanka wixii ka soo baxayay marka ceel shidaal haddii la helo waaba ka daran tahay waxaan dhageystayaasha iyo ninkii kale oo odayga saaxiibkay ah ee kasoo hadlayay Nairobi mid baa u baahan inay fahmaan baarid batroolka la baariya macnaheedu batrool baa kugu jiro oo laga soo saaraya dhulkii ma aha weli lama yaqaano Soomaaliya inta batrool ku jira inta ku jirta lama yaqaano Soomaaliya حتى إن معركة مالين مغفل إنه كتير لما يقانو
dagaalkan Soomaaliya ka socdana wuxuu 30 sano ku sii socdaa marka waxaan ka hadlayaa ama qolooyinka kale oo wasaaradda batroolka laga hadlayaa war dhulkeena aan saxansanno ama badeena aan ogaano inta batrool ku jirta ma nagu filan yahay ama batroolba kuma jira miya marka ma aha hadii batrool baa la baaray leeyahay in sidii ceel biyaha inta la qodo biyo laga soo saarayo ku xiga waxa la aaminsan yahay kaliya Soomaaliya oo la eg yani marka la eego dhowr dowladood khaliijka ku yaala Kuwait iyo Bahrain iyo Qatar iyo isku daray iyo qayb Sacuudi kamid la eg ilaa hadda ceelasha laga qoday bariga waa 70 badana inta laga qoday waa in ka yarshan marka loo eego caalamkana مثلا state kan Oklahoma la yiraahdo oo Mareykan ka tirsan 10 ceel baa laga 10,000 oo ceel baa laga qoday waan gartay Dr. Xasan waan ku soo noqonayaa haye waqtiga dartii waan ku soo noqonayaa Dr. Xasan ceel marka la qoday kadib baa la helay batrool laga helay Soomaaliya inuu ku jiro inuu ku jirin lama yaqaano marka maxaa diidaya hadii la baaro Soomaaliya badii iyo dhulkii laga baaro batrool oo kadib marka la ogaado inuu ku jiro in kale kadib marka laga wada hadlo sidee loo heshiiyaa waad maasantahay maamul goboleedii halkan laakiin baaridii la hor istaagin waad maasantahay Dr. Xasan halkaas aad naga dhageysanaysaa waa laanta af Soomaaliga ee BBC barnaamijkana waa barnaamijka waxa ay la tahay ee dooda Jimcaha afrikada bari hadda shantii waxa ay dhaaftay 31 daqiiqo barnaamijka galabta waxaanu ku eegi doonaa su'aasha ah ma tahay xilligii saxda ahaa ee Soomaaliya ay soo saari lahayd khayraadkeeda dabiiciga marka la eego xaaladda ammaanka ee Soomaaliya inagoo ka duulayna shirkii caalamiga ahaa ee toddobaadkan lagu qabtay London ee shidaalka iyo gaaska Soomaaliya looga hadlayay waxa barnaamijka nagala qayb galaya dhageystayaasha ka sokow marti sharaf ka socda dawladda Soomaaliya iyo maamul goboleedka Puntland iyo waliba khubaro kale iyo dad aqoon-yahano ah waxaad naga dhageysanaysaan BBC London bal markaan aan tagno Garowe Faysal Xawar waxaan rabaa inaan ku weydiiyo waxa la leeyahay Soomaali wali iyadii baan heshiininba marka haddii waxaan shidaalkan reero loo soo saarto dhibaato hor leh bay keenaysaa marka aragtida sideed adigu ka leedahay waralkayo waxaan waxa weeyaan waa bini'aadanka iyo fakarkiisa qofna wuxuu arkaa koobka inta maran qofna wuxuu arkaa koobka inta buuxa waxa weeyaan Soomaali waxay isku dishay waa baahi Soomaali wax badan abaageel ha raacdo ama xilliga dowladnimada waxay isku haysataa waa resource oo yar biyahoo yar ceelashoo yar waxa quudkoo yar marka ninka ka baqaya in la tijaabiyo bal direct in la doono iyo shaqo abuurid caruurteena baday ku dhimataa nootayda ku dhimataa shaqo doon iyo nolodoon bay ku dhimataa kuwa burcadbadeed isku qaaday xaqir kuwa isku qaaday waxaasoo dhan waxaa keenaya waa habaarka baahida iyo fuqurka marka ninka ka baqaya inuu tallaabo hor u qaado oo horumar iyo keeno waxa la gaaro waxaweyaan waa nin koobka xaggiisii madnaa arkay xidmadda usoo aranaya waxay tahay oo clearka ah Soomaali hore u mari mayso ilaa FBI foreign direct investment adduunyada maalgashi bay ku dhisantay ilaa maalgashi yimaado dadka ka sandariyey Soomaaliya laakiin halkaan ka dhexgala Faysal midda maalgashiga ilaa Soomaali waxa tiri faqriga kama baxayso ilaa maalgashi yimaado laakiin sida hadda sheegaysid hadiiba aan maalgashigii siyaasad u degsan aysan jirin oo Soomaaliya hadda jiha cusub iyo federal ay qaadanayso oo sharci jirin xagee wax laga bilaabaya wala way jirtaa isfahan badan baa jira hadda wasiirka inka wasaaradda ka socda Maxamed Almur studio jooga kuma diidan fakarkiisa oo petroleum loguna waa federal maamul goboleedyada jirana waan la tashanadii yiri waan la tashanaynaa isfahankaas ayaa muhiim ah in la ogaado Soomaali inay federal u guurtay magaran federal uu leeyahay qaab iyo uu leeyahay waana tan wada hadalkiisii maamul goboleedyada la dhisayo marka in la yiraahdo aynu sugno sida walaalka injineerka aramka ah uu sheegay
geedi socodka shidaal baarista waqti badan buu qaadanaya. halka haddii aan kaa dhex galo la bilaabo ayaa muhiima. Faysal waxaa tiri isfahan baa jira, laakiin isfahan inuusan jirin waxba laga dareemi karaa. Shirkii shirkan intuu ka dhacayay shidaalka iyo gaaska Soomaaliya, shir kalena ka dhacay oo caalami oo maalgashiga Afrika ku saabsanaa. Madaxweynihiina Puntland oo keliya ka qayb galaya, cid kale oo Soomaali inta af Soomaali ku hadasha ka socota ma jirin. Marka maalgashigii marka aad leedahay isfahan baa ka jira, so ma aha sidaas inaan cidna war iska haynba. waa dhici karta inay ka cudur daartaan maamulada kala ajandahooda iyo scheduleka hawlahooda, howlwadeenada madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo dowladiisa cabdiweli waa laga yaabaa inay laba safray ku jiraan ka cudur daarteen. marka lama oran karo. midda labaad, Soomaali horumarka meeshii Soomaali wax loo qabta ama meeshii wax ka qabsoomaanba waa meeshii kalso. resource-kana ka hadlayno, khayraadkan waxaa iska leh min ilaa iyo saylac ilaa iyo raas caseen ilaa iyo camboni inta joogta resourceka umada wada leedahay. waxaa xaq ku leh ummadda muslimka ah meelay joogtamanaba sekada iyo khayrka uga helo khaliijka gacanka oo ima gacan qabtaan baa inaka sakoona ku waajibaysa. waad mahadsantahay. hase yeeshee dawaaga lamaba gaarin oo geedi socodkan inuu bilaabmo oo laga wada hadlo oo arrimahan federaal samaynta iyo constitutionkan dib loo qoraayo lagu daro bay noqonaysaa. laakiin waad mahadsantahay Faysal. waqtigan nagu yar waxaan siinayaa waan kugu soo noqonayaa waxaan idinka codsanayaa dadka barnaamijka nagala qayb galaya daqiiqad ama nus daqiiqo in lagu soo koobo qof walba mowqifka uu macnaha ka dhiibanayo su-aasha taagan, si aan waqtiga uga faa'iidino dhegeystayaal fara badan oo telefonka noogu jira. waxaan siinayaa Maxamed Cali Nuur. Maxamed, maxaad ka leedahay arrintan? run ahaantii waxa weeye walaalkayga ka soo hadlaya Puntland iyo xasan oo ka soo hadlaya Aramco, run ahaantii waxa weeye dad xaqiiqada runta ah Soomaaliya ka hadlay. haddaan isugu soo laabanno xaqiiqda waxa weeye Soomaaliya dhibaatada ugu horeysay halka ay ka timid sida uu walaalkay sheegay waxa weeye waa resourcekii Soomaaliya oo aan ku filnayn inuu wadanka horumar u gaarsiin waaye. taa ayaa haddaan dib yar ugu laabto, haddaad eegto statistical abstractgii Soomaaliya waxa weeye Soomaaliya mucaawina ayay ku nooleed. mucaawinadaasoo gaaraysay in ka badan GDP-ga wadanka 60% ka badan. waxaa Soomaaliya lagu caawini jiray 500 milyan average sanadkii lagu caawini jiray. taa marka waxay kutusaysaa Soomaaliya in maanta baahi ay u qabto in resource ka duwan alternative kii hore wadanka ay doonayso in Soomaaliya ku horumariso, in Soomaaliya maanta ay doonto. waxaana wey waa khayraadkeeda shidaalka ah, waana inay soo saarta Soomaaliya, waana muhiim. waan gartay. mar dhow dhegeystayaasha fikirkooda ka dhiibtay arrintan shidaalka Soomaaliya ayaan goordhow eegi doonaa, laakiin kuwa dhinaca Facebooka ku soo qoray 100 qof ayaa aragtidooda ku soo dhiibtay. waxaa ka mid ah Maxamed Cabdi Salaad oo Muqdisho jooga. wuxuu yidhi anigu waxay la tahay inaysan haatan wanaagsanayn in shidaal la baaro, waayo Soomaalida dhulkii iyo biyihii ayay ku heshiin weydee, sidee ayay shidaal ugu heshiinaysaa? laakiin fikirkiisa waxaa ka soo horjeeda oo aaminsan in waqti ku habboona ay tahay. dhegeysta la yidhahdo Daadir Cabdiqaadir waxa uu yidhi waa xilligii ku habboonaa, waa haddii musuq maasuq la iska daayo oo la isku kalsoonaado, ayuu yidhi, tugsigana la iska daayo. qadka telefonka waxaa magaalada Nairobi isna uga jira Maxamed Daahir. Maxamed Daahir, wixii su-aalaad qabto ama fikir? walaal waxaan isleeyahay hadda waqtigan kuma habboona in Soomaaliya shidaalkeedu la soo saaro. maxaa yeelay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya haatan jirta, federaalkii si qaldan bayna u fahantay. gobolladii Soomaaliyaba gacanta kuma haydo ama wax federaal lagu yahayba ma cadda. waxay noqotay federaalkii in uu Muqdisho uu shirka lagu yahay, Muqdisho ay dowladdii federaalka u qaadatay. waxaa habboon marka hore in lagu heshiiyo war Soomaaliya siday wax u qaybsan lahayd, federaalkana la hirgeliyo. war ninkii gobollada maamulada ka jira maamulkiina gaaray u haystaan, dekedihii iyo dhaqaalahoodii gaaray u haystaan. dadkii ay soo dirsadeen xamar ayay cashuurtii dekada aeroboortkay maamulayaan. magaaladii Muqdisho isbitaal iyo iskuul wax loo qabanaya male. marka federaalka ilaa laga saamo oo la saxo, waxaa ila habboon inaysan ku habboonayn hadda xilligan dowladda federaalkana aysanba maaragtay ahayn dowladdii qaban lahayd arrintaas hadda sida muuqata. waan gartay. su-aashaas balan fikirkaas aad qabto Maxamed Daahir aan siiyo Faysal Xawar oo la taliya u ah maamul goboleedka Puntland. Faysal, maxaad uga jawaabaysaa dhegeystahaasi Nairobi ka soo hadlaya?
walaalkay waxa weeyaan waa iska cabsida habmaamulkan cusub ee la faragarayn keliya ee Soomaaliya lagu badbaadin karo waa federalism taa ruuxeedu mar haddaan maamul goboleedyada la dhisan ciidamo oran waa dhamaystirmay oo waa kun maamul goboleedyada la dhisayo haddana axdi uuda dhexeeyo maamul goboleedyada la dhisayo Soomaaliya way isu imaanaysaa waana sida ugu habbooni waa in maamul goboleedyada dhismana la dhiso oo wada jir u dhismo isla markaana axdiga la eego 2016 one man one vote aanu gaadhno Soomaaliya cabsidan ay ka cabsanayso federalismku ciidamo oran waa dhamaystiran yahay waa in la sugo oo waqti kale la sugo horumarka Soomaaliyana waa in uu bilaabmo Soomaaliya waa maasanta ilaa iyo xaawiya aadan baan wada joognay marka waxba isku waa inaynu maalgashiga furnaa ilbaabada u furnaa ummaduna qaanuun iyo shuruuc ismaynaa ilbaabkii laga soo geli lahaa murankan dhexdeena yaalaana wuuna ka carqaladaynayaa cidina lagama maarmo federaalka iyo maamulka dhexe lagama maarmo degmooyinka iyo maamul goboleedyada iyo ilaa iyo tuulada marka ceelal iyo heshiisada xoolo nabad cadaan baa la yidhi marka ceelal iyo heshiisada xoolinta ceelka ag joogta markaas ayay noqonaysaa Soomaaliya heshiiso waana muran ku daalay heshiis baa dadka diyaaradda waan gartay waa maasantahay Faysal waa maasantahay waan kugu soo noqonayaa Professor Yaxya Sheekh Caamiran siiyo oo stuudiyaha Nairobi fadhiya Professor maxaad ku diidaysaa markii beeliya heshiiyaan ayaa reeruhuna cabayaan buu yiri sidaad maqlaysa Faysal horta inaan riya ku noolaana ma fiicno shidaalku 4 marxaladoo maraa waa sahan soo saar maamul iyo siyaasad lagu maamulo anakoo sahan ka taagan ayaa waxaan ka hadlaynaa siyaasadii lagu maamul lahay hadda saaxiibkay ka soo hadlayay Garowa Fila wuxuu lahay wafdiya shirki nooga qayb galay oo gaas hogaaminaya wadamada Uganda iyo Rwanda iyo wadamada kale oo ka qayb galay hal wafdi oo qarankaas oo dhan matalay ayaa ka qayb galay anaka waxaa ka qayb galay maamul goboleed ma haysto mandate Soomaaliya oo dhan oo ka haysto oo ku matalo waxaa meeshaas ka muuqata in carqaladna loo samaynayo haddii marka hadda la soo saaraad iska leedahay adoo waxba heshiisiin aad ka bilowdo gaalkacay labaad waxaan moogahay laba sito Yaxya Maxamed Cali Nuur oo ila fadhiya madaxa ruuxaye Maxamed walaalkay waxaan u sheegi lahaa Soomaaliya yani waa hal dalo qura Cabdiweli oo ka qayb galay shirkaana wuxuu ahaa prime ministerkii Soomaaliya annagu haddaan shakiga iyo ka baxno cuqdada oon niraahno nin walbo maanta Soomaaliya oo loo idmado amaba u istaago inuu wadankii Soomaaliya xitaa iska daa wadanka horena qayb yar wax ka qabto waxa weeye waa wanaag ama horumar wadanka u soo hoyday waa shirkan ka dhacay London shir lamida ayaa dhinaciisa socday oo Soomaaliya shidaalkeeda looga hadlayay haddana waxaa matalaysay dowladda federaalka Soomaaliyeed wasaaradda macdanta iyo batroolka ayaa matalaysay macnaheedu ma aha inay cid gaar ay matalayso waxay matalaysay Soomaaliya oo dhan maalgelintan shirka kale oo ka socday isaga Londonna uu ka qayb galay madaxweynaha Puntlandna waxa ka yimaada waa wax Soomaali ay leedahay Yaxya ma qanacday maya sharci darro dusheeda rabaa inuu ku ansixiyo fiiri markaan leenahay weli ra'iisul wasaare ahaan jiro yiri haddii asoo ra'iisul wasaare ah oo tago sharciga naqanay marka Soomaaliya dhan ra'iisul wasaare u yahay laakiin hadda magaca Soomaali gaas waxba kuma saxiixi karo sharci markaan ka hadlayno haddii dawladdu dhexe ay u igmato iyadoo saxiix la siiyo dalageedu noo yahay iyadoo wasaaradda laakiin wax la saxiixda ma laha Yaxya Professor wax la saxiixda ma laha hatta ka qayb representationka wasaaradda joogta qaranka dhaxaysa dawladda oo ra'iisul wasaaraha ka ahay oo kala dawlad ahaa dhisan wasiirkeeda matali karo ra'iisul wasaaraha matali karo labadiiba ma aha markaan laakiin hadday ka cudur daarteen ninkan ra'iisul wasaaruhu ahaan jiray Soomaaliya magaceedii buu wataa maxaad ku diidan tahay ood ahaan jirta waxba laguma saxiixi kara de ad madaxweynaashii lasoo dhaafay waa nool yihiin shirarka inta tagaan may magac madaxweyne ku matali karaan maya taytolka aad markaad haysato ayaad wax uga qayb geli kartaa haddii lagu wakiisha ay jirto wakaalad dowladda waa gooni waan gartay dhegeystayaasha markaan aan siino mar dhow waxaan la hadli doonaa Dr. Xasan Cali iyo Faysal laakiin waxaan jeclahay dhegeystayaasha codadkooda noo duubay inaan qaar ka mid ah fikradooda iyaguna aan dhageysano waxaan ahay maxay ahayd Cibaado Cali oo ka soo hadlaysa hurco waxa weeye rayigayga waxaan ka dhiibinayaa shidaalka leeyahay Soomaali baa la soo baxaysa Soomaali markay mid noqoto ayay wax la soo bixi kartaa waxa weeye iyadii baa gobolaa ciidamo shisheeye dib jooga nabadigo kuma jirto maxay
bixi kartaa in la isweydiiyaa fiicana marka ciidamada shisheeye iska dulqaado ayay wax la soo bixi kartaa. magacaygu waa Qaasim Seeraar oo jooga magaalada Boosaaso. haddaan u gudbo barnaamijka anigu waxaan qabaa haddii batroolka lasoo saaro in dalku horumar ku tallaabsan doono aanan ka bixi doono dhibaatadii muddada dheer aan kusoo jirna dhowr 20 sano aanan u gudbi doono nabad barwaaqo annagoo ka bixi doono rafaadka sirci baabi iyo tahriibtii fatigii aan muddada dheer kusoo jirnay. waxaan leeyahay Soomaalida iska daaya xaasidnimada foodada fadlan hala taageero. waxaanan filayaa haddii batroolkaasi dalka laga soo saaro in dalku horumar muuqdo ku tallaabsan doono. anigoo magacayga la yidhahdo Cabdi Aadan ku nool gobolka Jubbada Hoose waxaan aaminsanahay waqtigan hadda in aanan shidaal iyo arrimihiisa laga shaqayn karin sababtoo ah ma jira ammaan laisku halayn kara. dadka noloshiisa ayaaba waxay ku jirtaa xiriiri. waa tan aad ogtihiin sidaad ogtihiinba gobolada barkood qabiil dadku ay iskugu laanayaan. arrintaasina waxaa keenay waxaan federaalka loo bixiyey oo la doonayay in wadanka gobol loo kala xiro. meel kasta waxay doonaysaa inay carro qabsato oo ay kan kale oo dariska la ariixida. sidaa darteed haddii arrintaasi maanta la sameeyo waxaa imaanaysa dhibaato fara badan oo xagga amniga ah. magacaygu waa Shariif Cali waxaan ka soo hadlayaa magaalada Muqdisho. barnaamijkan haddii aan ka dhiibto fikradayda ee lagu caawinayo Soomaalida oo laleeyahay wadanka ayaa laga dhalinayaa shidaal oo laleeyahay maalgelintan waxaan isleenahay wax weyn bay Soomaalida u taraysaa. waayo wadankan haddii oo laga helo shidaalkaas laga helo wax badan ayaa dhaqaalihiisu isbedelaan oo kor ayay u qaadaysaa ayaan isleeyahay. dhegeystayaasha fikirkooda noogu duubay taleefonka ayay ahaayeen qaar ka mid a. Jabuuti waxaa isna khadka uga jira Cilmi oo jaamac. Cilmi, su'aal ama fikrad waxaad qabto? marka hore waan salaamaya guud ahaan dadka ka qayb galaya gaar ahaan madaxda si gaaran salaamayo wariyaasha BBC. kale waxaan jecelahay inaan sheego fikirkayga oo ah waqtigan iminka la joogo guud ahaan ma qurux badna in laga baadho Soomaaliya gas iyo wax la mid ah. sababtoo ah waanu arkaynaa xaaladda Soomaaliya halka ay taagan tahay xaq qabyaaladeed haday noqoto oo la arkayo sida ay taagan tahay dawladda federaalka wala arkaya oo wali iyadu awoodeedii aynay wadankii wada gaarsiisnayn iska daa wadankii oo dhane aynay Muqdisho iyo hareeriyaheega wali gaarsiisnayn. kabnahantii ma jecelina dawladda yar ceebeeyo balse waxaan jeclaan lahaa inaan sheego in waqtigan iminka loo baahan yahay horta in ay dawladdu awoodeysato kadib markay awoodeysato ee ay goboladii iyo maamul goboleedadii isku xidho ee midnimo la dhaliyo in markaasi la sameeyo maxaan ku raadaya wixii khayraad ah loo soo jeesto. balse waxaan jeclaan lahaa inaan kula taliyo isla markaa dadka talada Soomaaliya ay ka goodo in ay horta u dhaqaaqaan sidii loo midayn lahaa wadanka loona dhalin lahaa dawlad awood leh oo wadanka ka dhalisa maxaan ku raadin midnimo. aad baad mahadsantahay cilmi oo jaamacad baad mahadsantahay. Jabuuti ayuu ka soo hadlayay. dhegeysta fikirkiisa isna uga soo dhiibtay dhinaca Facebook oo la yidhaahdo Cumar Birjabshe oo ka soo qoray Jidda oo Sacuudi Carabiya. wuxuu yidhi waxaan qabaa in runtii waxa Soomaaliya hadda ka socda shidaalkan la sheegayo waa bililiqadii 91dii ayaa socota. marka ha laga baxo buu yidhi oo ha la helo Soomaali wadaniyiina oo dadkooda iyo dalkooda jecel waxna u qabta. isla Jidda waxa khadka uga jira Xasan Cali. Xasan, dhegeystayaasha intooda badan walaac bay ka muujinayaan xilligeedii ma hay leeyihiin. adiguna waxaad tiri waa baaritaan un hadda waxa la samaynayo. laakiin haddii ay wax soo baxaan intay xaalkuna wadanka intan weli uu sidan ku jiro soo ma imanayso waxay dadku ka walwal qabaan inay dhacaan. waxa runtii baaritaankani wuxuu soconayaa oo hadda shirkii London ka dhacay laga sheegay midda hadda badda ah kan dhulkana waa ka sii badan yahay 6 sano ilaa 8 sano inta u dhaxaysa ayaa dhici karta haddii batrool la helo in lagu soo saaro muddo dheer buu u baahan yahay. maaha in sanadka dambe haddii xataa la helo in la soo saari karo sababtoo ah waxay yiraahdaan qolooyinkan geologiyiinta batrool ku takhasusay weli waxaan ku jirnaa stage u horeeyo oo loo yiraahdo upstreamka ama baaritaanka. marka soo saaridii weli waqti dheer bay u baahan tahay. laakiin soo saaridda Xasan soo saaridda ka hor xitaa inta la baarayo xitaa oo meelo la sii kala cayimayo wax laga helay ayada xitaa inay khilaaf keento la isku dagaalo soo macquul ma. waxaan aad ula yaabanahay khilaafkani iyo batrool la baara waxa yacni
waxa iska hor keenayo. Haddii aan eegno wadamadan hadda batroolka laga soo saaro badankooda ama qaarkood sida Nigeria dagaalaa ka socdo weligoodba dhinaca oo maartay waa la weerari jiray shirkadaha batroolka soo saara ilaa hadda la weeraraa. Iraq waad ogtihiin waxa ka dhaca maalin walba. Libya waad aragteen waxa ka dilaacay. South Africa maalin kaliya hal barmiil oo batrool ay soo saaraan lama joojin. Hal dhibic oo batrool ah ay soo saaraan looma joojin, dagaal baa socda ama dagaal baa dilaacay looma joojinin. Marka waxaan aad ula yaabanahay dadkeena Soomaalida inay maalin walba yiraahdaan waan iskhilaafsanahay maxamed cali nuur baan siinaya marka maxamed maxaad ku dari lahayd waxaan oran lahaa ninka maanta taagan Soomaaliya waqtigii lama gaarin in shidaal laga soo saaro waxa weeye nin aan doonayn maanta Soomaaliya inay horumar gaarto. Soomaaliya horumarkeeda wuxuu ku xiran yahay Soomaaliya waxay ku dagaalantay dhibaatada Soomaaliya maanta gaadhay ay tahay waxa weeye waa resource-kii Soomaaliya qofkii endowments entitlement dadka u lahaa ayay waayeen. Meesha maanta Soomaaliya alternative u ah laga soo Soomaaliya ka soo kaban karto waa inay soo saartaa shidaalkeeda. Cid kale maanta shidaal lama soo saarayana waxa weeye waa cid aan doonayn in maanta Soomaaliya horumar ay gaarto. laakiin waqtigeedina waa la gaaray sababtoo ah waxa weeye maanta dawlad rasmi ayaa wadanka ka jirta. wadanka xasilooni fara badan ayaa wadanka u soo hoyatay heshiisyo fara badan iyo afgarad badan baa dawladda federaalka ay ka dhaxdhalisay maamulada waqti maanta ka haboon. Professor kinu fikirka kula qabo Yaxya stuudiyaha Nairobi fadhiya Yaxya waxa leedahay waxa uu ku leeyahay Maxamed waad maqlaysaa haddii Soomaaliya xilligan aad diidanta nin horumarkeeda ka soo horjeeda tahay waxaan ka xumahay saaxiibka inuu xukun iska rido asoo aan dhinacyo badan aniga shidaal in la soo saaro ma diidani laakiin qof gaarana cogdo uma qabo laakiin xaaladda ay abuurayso iyo waxaan u maleynayaa waddankoodha inuu la socon 20 cashoo lasoo dhaafay Somaliland Puntland iyo koonfurta ayaa soo wada maray weliba xaaladaha gudaha waa aadaan ula socdaa waxay iga tahay dariiq saxa oon isku raacsanay aan u wada marno laakiin runta haddaan isku sheegno already shirkadaha qaara waxay la mataanoobeen maamul goboleedyada qaarkood haddaan runta sii sheegnana dhaqaale iyo hub maxaa shirkad shidaal inay maamul goboleed hub siisa keenayo xaaladaha marka laga cabsi qabo ma aha shidaal in la soo saaraa laga cabsi qabaaye anigu marxaladii sahanka joogno in marxaladii siyaasadda haddana lagu sii isticmaalo maxamed taas waa tan dhibaatada keenaysa su-aasha maamulaha shirkado ku xirtuu leeyahay horta maamul goboleed heshiis shirkad caalami ma la gali karaa taa horta waa su-aal u baahan in dhinacyo badan laga eego iga jawaab ma la gali karaa maya maha ilaa hadda dastuurka Soomaaliyeedna kuma qorna inuu maamul la geli karo heshiis shidaal la geli karona kuma qorna dastuurka Soomaaliyeedna oo maanta federaalkana wuu qoran yahay laakiin interpretationka ayaa wuxuu dhibaato ka keenaa ku sheego kuwii maamulada hadda marka ay la galeen maadaama aad leedahay kuma qorna dastuurkii waa ka kac anigu ka kac oran maayo laakiin waxa weeye dastuurka ayaa wuxuu u baahan yahay in interpretation dastuurka Soomaaliyeed qodobka haddaad fiiriso 53 wuxuu ku leeyahay qodobka 53aad wuxuu leeyahay dawladda dhexe ayaa guardian ka ah muxuu ahaa isha interestka maamulada marka mugdiba halkaas ka jira qiranaysa waxa kale oo jira qodobka 142 oo dastuurka isagana wuxuu leeyahay inta ay ka soo dhameystirmayaan maamulada hadda jira oo la aqoonsan yahay waxay ku sii dhaqmayaan dastuurkooda u qoran marka waxa interpretationka ayaa dadka ninba dhinac u fasiray laakiin hal mid baan kugu sheegaya haddii maamul goboleed uu maanta la galo heshiis uu shirkad la galo kaba soo qaad shirkadda naftirkeeda aanu dhanka ka eegayn maamul goboleedka shirkadda haddii intay maanta investment wadankii meeshii ay geliso oo dhaqaale fara badan geliso maamulka hadduu isbedelo mid kala yimaado oo ay shirkaddii cayriyaan internationally yay u aqoonsan yihiin in markaa halkay ka dacwoonayaan waan gartay talabaadna dhanka kale sug markaan siiyo Puntland aan siiyo Faisal muddo aamusna Faisal xawar waxa leeyahay shirkadahan ajnabiga ee shidaalka baaraya oo maamul goboleedkiinu ka mid yahay maamulada heshiiska la galay su'aal baa laga keenaya sharci dastuurkiiba kuma qornuu leeyahay Maxamed walaalka farxaan oo waa arrin sida taxadir kale walaalka maxamed cali uga hadlay weeyaan dastuurka Puntland xuquuq wuxuu siinayaa isagoo soo bilaabmay xilli aan kumeel gaar iyo aftaan jirin xuquuq ma siinayaa in aanu wixii dadkan iyo dalkan lagu badbaadin karo aanu raadino saxiixnana dastuurka ayaa uga noo siinaya marka heshiis marka heshiis caalami marka heshiis caalami waa la gali kartaan barnaamij sare lala galay oo kii ugu dambeeyay hadda uu October-ka tan bishana ku jirna dhacay ayaa jira oo iyana
oranaya waa saxiixi karaan magaranaysa hase yeeshee wuxuu wax weyn oo lagu murmo sagaara biiwacadka iyo nacabka ma aha waa wax u baahan keliya dadkan federaalka iyo in soomaali baraado lix faataxo loo akriyo keliya ayaa meesha ku jira wax cabsi iyo muran ka taagan yahay hadda aanu federaalka isku diidannahay ma ay jiraan waa wax wixii interpretation u baahana dib lasaga noqdo axdiga dib aan ugu noqonaynaa maamul goboleedyada axdiyadooduna way leeyihiin waxaan wax cabsi la geliyo oo horumar maalgashi iyo shaqo abuur caruurtan ku dhamaatay malka lagu badbaadiyo wax ma aha marka aad baad mahadsan tahay waxa weeyaan dadkan ka baqaya aan u akhrino inay horumarka alla tuso in soomaali aanay hore u dhaqaaqayn maalgashi la-aanna waa inaynu hoosta ka xaragnaa aad baad u mahadsan tahay gabagabadii barnaamijkan soo gaarnay akhyaarta waxaan siinayaa midkiiba ilaa iyo 50 second marka waxaan ku hormarayaa xasan cali xuseen oo sacuudiga khadka uga jira xasan maxaad is leedahay arrintan maxaa fursad ama maxaa caqabadoo ka hor iman kara si kooban caqabaduhu shirkana waan ka sheegay shirkii London ka dhacayay caqabado oo la xallin kala weeye oo midda dastuurka ka mid ah oo inay iska dawladdu ay si faahfaahan u qorto dastuurkii qabyada ah ee 2008 lawyer dawladdu la shaqeeya ayaa isna meesha jooga aad u faahfaahiyay qolooyinkan hadda kaliya u baahan Puntland ama Somaliland iyadana inay hadii ay shirkado la saxiixayaan iyo hadii dawladda la hadlayaanba inay xisaabta ku daraan ayaa loo baahan yahay oo ah in dhulkii blogyo badan oo u badan labada gobol in la bixiyay waqtigii dawladda siyaad bare shirkadaha waaweyn Konoko iyo Shell iyo ay ku xisaabtamayaan marka shirkadahaas oo ama laga wada hadlin arrintaani oo la ogaan inay soo noqonayaan inay soo noqonayn inayna ku degdegin inay shirkado kale u saxiixaan sababtoo ah international ayaa ka hor imaanaya intaas aad baad mahadsan tahay xasan waxaan siinayaa professor Yaxya Sheekh Caamir Yaxya maxaad is leedahay ka hor iman kara in arrintan ay guul ku dhamaato waxaa ka hor imaan kara heshiis loo miday dhexe oo loo midaysan yahay haddaan loo qaadan in batroolka ama khayraadka dabiiciga aan dhahno batrool kaliya halta maanta ka hadlaynay khayraadka dabiiciga dhagax aalbuurna wuxuu noqonaa khayraad dabiici webiguna khayraad dabiici ninba intiisuu xirina saaxiibkaygii lahay badda qabaa'ilku ma tigi karaan ilaa hindii ay qabaa'ilku wax ka soo afduubanayeen maraakiib shidaal kastoo badda laga soo saaro markaba ka qaada qabiila dhahay anaa iska lahay xeebtaas waa in la helo marka dowlad dhexe oo wakiil nooga naqato dhammaan waxay heshiisya caalamiya ee ku saabsan khayraad dabiiciya waa inaan gobol iyo waax aan loo ogolaan inay heshiis caalamiya oo ku saabsan khayraad dabiiciya ay saxiixaan percentage weyn ha laga siiyo waxa ka soo baxo bacdamaa ay deegaankii laga helaba laakiin mas-uuliyaddeeda waa inay cid dhexa qaado aad baad u mahadsan tahay Yaxya Sheekh Caamir waxaan siinayaa isna Faysal Xawar Faysal maxaad is leedahay ugu dambeyn arrintan xal wuu u yahay xal uu yahay fahan waara inaan intigan laisku cafinayo shabeelka iyo rida laisku cafinayaana meesha jirin Soomaalisaanto federaalka iyo maamul goboleedyadu waa hal dawlad waa hal dad hal nation baynu hal qaran baynu nahay wax la isku xiriyo meesha ma jiraan prime ministerkii federaalkii Soomaaliya ee dawladda dhexe ee inoo wada go'aaminayay ayaa halka hadda madaxweyne ka ah la arkay isaga iyo rag la mid oo kafeena yimaadaan waxa weeyaan isfahan ayaa loo baahan yahay dastuuriyada maamul goboleedyada iyo kan federaalka oo in wada leenahay la iswaafajiyo lagana waantoobo carqaladayn iyo degdeg weliba xagga maamul goboleedyada iyo xagga federaalka weliba hay-adahan ay khusayso in si yaroo tafsiida wasaaradu u beeniyo in laga taxadiro waa maalgashi in la ribeergareeyo haddii wax ka qaldan yihiin waad mahadsantahay Faysal aad baad mahadsantahay waqtiga kaa dhamaaday waxaan siinayaa Maxamed Cali Nuur ayaan siinayaa Maxamed Cali Nuur maxaad kusoo gabagabaynaysaa adiguna 30 second farxan waad mahadsantahay waxaan kusoo gabagabeynayaa Soomaaliya Soomaali baa leh khayraadka dhulkeedana Soomaaliya oo dhan baa leh cid gaar u leh Soomaaliya ma jirto waxaan ku boorinayaa in intay isu yimaadaan ka wada fariistaan wax wada qaybsadaan wuuna ka badan yahay khayraadka dhulka Soomaaliyeed ku jira waxaan oran lahaa oo kaliya Soomaaliyay waxaad ku horumari kartaan waa khayraadkiina iyo caqligiina labadaa haddaad isu kaashataan Soomaali horumar bay gaaraysaa waana idin mahad celinayaa kulligiin aad iyo aad baad u mahadsantihiin dhammaan inta nagala qayb gashay barnaamijka dooda jimcaha ee galabta waanu ku eegaynay shidaalka Soomaaliya intaanu mar kale dib toddobaadka dambe barnaamij la mid ah kan aanu dib ugu kulmi doono dhammaantiinba waa BBC oo idinle sidaa iyo ismaqal dambe oo xiiso leh